أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، waxay isugu keen dambeysay markay taariikhdu ahayd abril 5teedii 2019 ayaa xalqadii ugu dambeysay ee silsiladan aynu halkan ku kala qaadanay 11 silsiladood 11 fadhi ayaynu ka galay cilmigan caalam aljin wa axwaalih. intii hore mawaadiic aan is odhan karno waxay gogoldhig u yihiin ama u ahaayeen mowduucan maanta aynu bilaabayno oo xaqiiqatan mowduuc aad iyo aad muhiim u ah in qof kastoo muslimihii uu wax ka ogaado oo wax ka fahmo si uu towxiidka iyo shirkiga u kala garto ayaynu soo qaadannay. mowduuca maanta aynu daraasadiisa iyo cilmi baadhistiisa aynu bilaabaynaa wuxuu ka koobnaan doonaa 6 qodob. qodobka koowaad waxaynu kaga hadli doonaa mashkiladan iyo aafadan sixirka iyo dunida goortay ku soo biirtay taariikh ahaan intii aynu ka soo ogaanay ama aynu ka helay baadidoonkii waynu ka hadli doonaa in sha allah. waxaa kaloo aynu ka hadli doonaa mowqifka shareecada islaamka iyo diimuhu ay sixirka ka taagan yihiin. qodobka saddexaad aynu ka hadli doonaa waxa weeye inta nooc ee sixirku u qaybsamo. waxaa taa kalifaya qofka bini aadmiga ee muslimka inuu kala garto towxiidka iyo shirkiga, sababta oo ah 100% sixir haddii la soo qaado shirki way wadaagsadaan, ma kala maarmaan, waa isku qaraa-in weeye. marka hal nooc oo sixirka ah haddii aad wax ka ogaato ama aad fahamto si aan lagugu khiyaamaynin noocyada kale, waxaynu isna isku dayi doonaa inaynu isdul taagno noocyada sixirku inta ay u kala baxaan. waxaa kaleynu ka warrami doonaa qodobka afraad, sixirku dhaawaca iyo aahaarta iyo raadadka uu ku reebo bulshada sixirka isticmaasha. ummadu hadday sixir u guurto oy xaqiiqada ka guurto sidii reer bani israa'iil oo kale, maxay dhaxal siinaysaa qadiyaddaasi? qodobka 5aad waxaynu ka hadli doonaa sixirka iyo calaamadihiisa. 2 qayboodba markaa kaasi u qaybsami doonaa. ruuxa sixiroolaha ah, rag iyo dumarkuu doonaba ha noqdee, mar allaaliya markaad sixiroolo aragto mucaamalaadka aad ka arki doontee markiiba aad xukumayso inuu qofkani sixir isticmaalayo. waa qodob muhiim ah inuu garto qofkani ma qof shareecada islaamka ku joogaba mise qaabkan uu maraya waa qaabkii sixirka. taasi waa masalo muhiim ah oo qof kastoo muslimi uu garto sixiroolaha iyo qofkaan sixiroolo ahayn inuu kala saari karo. qodobka labaad ee kaa hoos imanaya waxa weeye qofkan sixran ama ruuxa la sixray calaamadaha uu isku garan marka uu sixran yahay. qof baa iska socda, xaajadiisa meeluu u qaado ma garanayo, waa dhabadhabaysan yahay, noloshiisoo dhani way cakiran tahay, meel looga yimid iyo meel laga raacay toona garan maayo. laakiin haddana calaamadihii sixirku way ku qumaan
marka calaamadaha qofku ama uu isku garanayo ama qofkii ka tala bixinaya uu ku garanayo wuxuu inuu sixir yahay masaladaasina muhim bay ila muuqatay iyana waqtigeedaan siin doonaa waxaa iyana aan ku soo gebagabayn doonaa qodobka lixaad oo ah maxaa lagu daweeyaa qofku isagu keli ahaantii ma isdaweyn karaa oo sixirka ma iska daweyn karaa hadday haa tahay muxuu isku daweynayaa dariiqa uu marayo qofka iscilaajinaya ama qofka la cilaajinayo ee sixirka iska cilaajinaya oo ah dariiqii sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintu sheegtay lixdaa qodob ayay ka farcami doonaan daraasadeenna iyo hadalkeennu cilmigan cilmi sixirka la yidhaah ama ku dhaqanka sixirku in wax laga ogaado ama la fahmo arrintan waa min daruuriyaati اddiin waa baahida qofka muslimka ee diintiisa ilaashanaya inuu wax ka ogaado cilmiyada daruuriga ah buu ka mid yahay sida aad salaadaada u baranayso aad cibaadadaada u baranayso ayay muhim tahay wixii caqiidadaada iyo towxiidkaaga raad ku yeelanaya inaad wax ka fahamto asbaabtiisa iyo wasaa'ishiisa iyo khayaamooyinkiisa iyo waxaasoo dhan inaad wax ka ogaato diintaada ilaashimaheedaa kuugu jira mowduucan sixirka lagu yidhaah wuxuu toos ula xidhan yahay qadiyat alcaqiida caqiidada iyo sixirku way iska soo horjeedaan sixirku ma xidhmo sidaan ka warrami doono ilaa an yukfara billaahi tabaaraka wa tacaala sixir xidhmaya ama adeegayaa ma jiro ilaa saaxirku uu ilaahay ka kufriyo mooyaane waxaana daliil kuu ah aynu ka hadli doonnaa aayadda dheer ee ilaahay sixirka kaga warramo innamaa naxnu fitnatun falaa takfur sixir adeega oo aan kufri loo adeegsanin ma jiro aslan hadduu qofkii saaxirka ahaa isagu kufri ku dhaco cidda u tagta ee uu sixirka u qabanayana iyaga laftoodu waxay kula dhacayaan kufrigii bay kula dhacayaan sidaa darteed waxay koontara isku yihiin caqiidada towxiidka sixirka iyo caqiidada towxiidku meel ma wada degi karaan saaxir baan ahaanayaa haddana muwaxid baan ahaanayaa ma suurtoobayso labada mid unbuu qofku u go'ayaa laakiin ayaan darrada wakhtigan taagan iyo qaraabada diintii lagaga dhacay wakhtigan xaaliga ah dadkii diintii qaraabay kaga sugan yihiin waa tii nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam bada'a addiinu gariiban wasayacuudu gariiban fatuuba lilgurabaa waxaad arkaysaa saaxir sixir isticmaalaya oo haddana saaxir aan isu haysan safka kugu cidhiidhaya safka koowaad maca daalik wuxuu isticmaalaa waa sixir iyo shirki iyo kufri iyo quriga iyo qashaabiir buu gacanta ku hayaa taa waxaa ka sii daran qofkan u tegaya saaxirka laftiisu inuu ruuxani saaxir yahayba garan maayo oo xukumkii rasuulkeennu sheegay axaadiistii saxiixa ahayd in lagu xukumayo ma garanayo oo ah ruuxa saaxir u taga ee rumaysta wixii uu kaahinkaasi iyo saaxirkaasi sheegay faqad kafara bimaa unsila calaa muxamed marka kii u tegayey iyo kii samaynayay labaduba jahli bay kaga sugan yihiin waxaanu inuu sixir yahay haadihi hiya qaraabat اddiin waa mugdiga diin islaamkii ku soo kordhay bay ka mid tahay sixirku waa waxyaalaha diinta bini aadmiga ka fasahaadiya waana beddelka diimaha ummaddu hadday diinta ka hulleesho ama ay jaahil ka noqoto waxa meesheeda u beddela waxaa u beddelaya sixirkaa u beddela sixirooluhuna in badan wuxuu isku dayaa inuu bini aadmiga halis ku geliyo diintiisa haddii ilaahay nafta ii daayo jimcaha dambe waxaan idinsoo hordhigi doonaa calaamado aan ka reebay dad sixiroolayaal u tegey calaamado aan ka reebay dad sixiroolayaal u tegey ayaan hayaa waan soo ilaabay maanta waan idiin soo qaadi doonaa jimcaha dambaan idin tusayaa waxa
iigu yaab badnaa qof dumara oo ka timi ingiriiska ayaa waxay u tagtay qof dumarahoo la shaqaysata jimanka iyo shayaadiinta. qofkii dumarkaa ayaa u tagtay jin bay la shaqaysataa. dabeedna waxay islaantii ku tidhi sixir baa kuu aasan, gurigaaga inagee, gurigaagaan sixirkii ka soo saaraya. jinkii ay la shaqaysanaysay saaxiraddani ayay sii dirtay meel ay isla yaqaaniin iyadiiyo jinkay la shaqaysataabay ku sii aastay. islaantii baa indha sarcaad loo dhigay, dabeedna halkii baa sixirkii laga soo saaray. waa kaa sixirkaagii. waa sida kuwan turubka cayaaro 3 mil kaasaa laygaga helayaa, haddana kuu kala bedela, kaasaa laygaga helayaa. noocaasoo kale ay u samaysa. saaxirkii wuxuu adeegsaday jin buu adeegsaday, sixir bay sii aastay. sixirkii baa loo soo saaray. markaasi haa wakaa sixirkaaga waan helay. taasi yaab iguma sii abuurinoo waan garanayaa inay shayaadiinta iyo insaanku wada shaqaystaan. rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum. inay wada adeegtaan labadanu waa wax iska cad. ee masalada aadka iiga yaabisa waxay ahayd dhagax madow oo dhagax baruur ahoo kuwan badda laga soo saara ah ayay islaantii u dhiibtay. waan hayaa, waan idiin keeni doonaa insha allah. islaantii waxay ku tidhi dhagaxaas iyo kaa fakanin. dhammaan wax allaaliya wixii masaa'iba iyo wixii balaaya iyo wixii shar ahoo dhan dhagahaasaa kaa xijaabi doona. dhagaxa ayaa kaa xijaabi doona. $2,000 keen, junuuddii inala shaqaynaysa baynu siinaynaa. dhagaxa noocaasa qiimihiisu wuxuu taagan yahay $2,000 buu taagan yahay. ceeb iyo caydh bay isku darsatay, diin la'aan iyo maalkeedii oo la furtay. $2,000 oon waxba loogu qaban oo indha sarcaad loogu dhigay, iyo diinteedii oo laga iibiyey oo lagu celiyey cahd alxajar, wakhtigii qurayshi ay dhagaxaanta caabudi jirtay. maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi sulfa bay kuwaasi taagnaayeen. laakiin haada almiskiina ee $2,000 laga qaaday waxaa laga dhaadhiciyey dhagaxaasi inuu wixii ilaahay qaban jiro o dhan u qabanayo. wixii ilaahay qaban lahaa oo dhan inuu dhagaxaasi difaacayo ayaa laga dhaadhiciyey. waana shirki noociisii ugu dambeeyey, in qofku uu aamino dhagax inuu ka celin karo aqdaarta ilaahay oo dhan. marka waxa amakaagle marxaladda iyo heerka maanta ay diintii marayso, in qof xijaaban oo salaaddii tukanaysa haddana in dhagax loo dhiibo oo lagu yidhaahdo dhagaxa $2,000 ku bixi, waxaanu kaa celinayaa dhammaan shar oo dhan buu kaa celinayaa. inana safkii masaajidadaynu buuxinnay, bannaankana shirkigaasaa lagu qaybinayaa. halkaasay maanta diintii maraysaa in dadkii dhagax la caabudsiiyo. sidaas ayuu mararka qaarkood wuxuu samaynayaa kuwa sixiroolayaashiihi si ay u fasahaadiyaan caqiidada muslimka. waxay odhanayaan neef sifadaa leh ama caynkaas iyo caynkaasa keen, waa la gowracayaa, jinkaana loo gowracayaa. waxa ilaahay kayrkii loo gowracana waxaa ka mid a wamaa uhilla ligayri illaahi bih. qofka neefkan gowracay wuxuu ku dhacayaa shirki. hilibkan la cunayaana waa xaaraan. waxyaalaha ilaahay naga mamnuucay waxaa ka mid a hilbaha wamaa uhilla ligayri illaahi bih, in la cunaa waa xaaraan. inta jaarka ahoo dhan baa hilibkii loo wasacayaa, lagu casharinayaa, la siinayaa. qofka muslimka ahee luqmad xaaraana cunaana wuxuu ka faa'iidayaa inaan ilaahay ducadiisa aqbalin. ilaa xaaraan buu cunay, inaan ilaahay ducadiisa aqbalin. heerkaasay markaa uga faa'iidaystaan sixiroolayaasha iyo jimanka la shaqaysanaya. oo jimanku waxay rabaan iyo shayaadiintu inay dadka fasahaadiyaan, diintooda ka fasahaadiyaan. waxyaalaha ugu layaabka badnaa ee isoo maray waxaa ka mid ahaa inan yaroo shabada oo aan isili waa 18 jir ayaa mid khuraafaadla ah loo geeyey
wuxuu ku yidhi jin baa madaxa kaga jira haye markaa jinkii baan ka saarayaa waa kow wuxuu soo qaatay tuubada yar ee dhuuban ee sharaabka lagu nuugo ayuu soo qaatay dhegta ayuu ka geliyo waa ku dharbaaxay xuubkii dhegtu waa qarxay markuu dhiiggii soo yaacay baa wuxuu waka sixirkii wuu soo baxay inantii oo dheg beeshay baa la ii keenay lacagna waa laga qaaday lacagna wuu ka qaaday naxariis darro ah inantiina dhegtii way dhimatay waana khuraafaad noocaas oo kale ah waxyaalaha intaan halkaa fadhiyay igu soo maray tiro iyo cadatoona male waxaa iga sii yaab badnaa oo iyana meesha igu soo maray intaan fadhiyey ilaahay jecela muxuu jiray arwaaxaygu waxaan shayaadiinu la kulmo waxay sameeyeen ii sixiroolaya halkan mid baa deganaa New Hargeysa wuxuu yidhi waxaan rabaa gabadh shaqaale ii noqota waa dadku waxay u yaqaaniin wadaadee dadka dabiiba wadaadnimadiina way dhimatay qof walba wadaad baa lagu sheegaya qof walba sheekh baa lagu sheegaya ta'yiidkana shacbigaa bixinaya waxaan la yaabaa nimaan injineer ahayn injineer ma yidhaahdaan nimaan dictoor ahayn dictoor ma yidhaahdaan janan nimaan ahayn janan ma yidhaahdaan nin walba taytalkiisa waa loo ilaaliyaa laakiin taytalka meesha ku dhintay ee halaagsamay waa taytalkii culimada habar aan salaad tukanin oo faatixada sixi karaynin baa la leeyahay sheekhad baa loo tegayaa mid sixiroolo ah oo dadka halliga la leeyahay sheekh hebel baa halkan fadhiya sheekhnimo way ku dhimatay ninkii wuxuu yidhi habluu dirtay wuxuu yidhi waxaan rabaa inan guriga iga yara masmasaxdo ii adeegta deedna waxay soo heleen gabadh 2 carruura agoona haysata naahedhe sheekh halkan oo dadka dabiibaba u baahan gabadh dhulka ka masaxdee damaad u shaqayn markaasi waa u baahanahay carruurtaan de waxoogaa ku korsanaya 7 aroornimo ayaa loo geeyey 8dana wuxuu la ballamay islaan khadra la yidhaahdo sakaraada oo uu yidhi xanuunkaan ka wareejinaya xanuunka ayaan ka rogayaayoo aan ku wareejinayaa qof tan markaa uu u yeedhanayana shaqo uguma yeedhanaya wuxuu rabaa inuu sixirka ku wareejiyo markay inantii timi ee ay shaqadii weydiisay bay yidhi yara sug waxoogaa markay sugtay baa islaantii oo garbaha lahayaa la keenay deedna inantii ayuu u dhiibay weel biyo ku jiraan markaasuu yidhi weelkan cab markaasay tihi de waxaynu ku heshiinay ma ahayn weel inaan biyo cabo shaqaad ii sheegtay shaqadii ii tilmaan iyadii oo iska baraad labo halkaa ku dhuftay tawaada way gagabtay intii ay gagabsanayd buu waraabiyey biyihii inantii jin baa galay oo ku adeegsaday oo khaadima sixir baa galay inantii way rafaaday islaantii sixirka laga wareejinayana habeenkiiba way dhimatay tii sixirka laga wareejinayna habeenkiibay dhimatay inantiina saaxir baa lagu salliday jin baa lagu salliday khaadim u ahaa sixirkan ilaa heerkaasay maraysaa waxaan markaa ka wadaa muhiimadda uu leeyahay in la ogaado sixirka iyo saaxirka muhiimadda ay inoo leedahay nolol ahaan muhiimadda ay inoo leedahay waxa weeyaan dadku way wada bacaysan yihiin way wada khaaqsan yihiin ummaduhu markay dagaalo ka soo baxaan ee mashaakilaad ku yimaadaan ee ay qaxaan waxyaalo badan oo cudurro abaa soo ifbaxa cudurradaasi waa cudurro xagga nafsiga ka imanaya deedna khalqi badan oo amraad nafsihi ay hayso ama mukhaadaraadkan la isticmaalayaa uu maxaanku dhahdaa dhaawac u geystay maskaxda ayaa waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inuu sixir hayo sixirna ma ahe waa mashaakil kaloo nafsi ah marka in qofkii uu kala garto maxaa sixira maxaa cudur kale ah ogaanshaheedii muhim buu noqonayaa cilmigan sixirka lagu yidhaahdo shareecada islaamku muhimmad gaara bay siisay waxaa ka mida muhimaadka shareecada islaamku ay sixirka si ay looga badbaado ay u siisay
qadaayaadka iyo arrimaha caqiidada marka bini aadmiga looga digayo waxa ilaahay soo diri jiray rusul bini aadmi ah qadaayaadka caqiidada kale oo dhanba waxa ilaahay uu soo diri jiray nebiyaal bini aadmi buu soo diri jiray laakiin qadiyat as-sihr si bini aadmigu ay u gartaan muhiimadda iyo culayska uu leeyahay rabbi wuxuu u soo diray laba malag haaruut iyo maaruut baa la kala yidhaahdaa sixirku culayska uu leeyahay iyo halista uu leeyahay si ay aadamuhu u fahmaan waxa ilaahay uu soo wakiishay uu rasuul uga soo dhigay inay masalada kufrigeeda bayaamiyaan malaa'ig buu ilaahay soo diray suurada basharka oo kale leh ummad qabiil kasta waxaa loo dili jiray rasuul in masaladan muhiimaddeedu hal malag baa ku filaa hal malag oo fariinta u soo gudbiya aadamaha ayaa ku filaa laakiin si arrinta muhiimaddeeda la inoo dareensiiyo ayuu ilaahay laba malag soo diray inta aynu ka naqaano ummadaha ilaahay nebiyada bini aadmiga u diray nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi haaruun labadaa nebi baa fircawn loo diray weliba nebiyullaahi haaruun wuxuu nebi ku noqday codsigii walaalkiis wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asrii wa ashrikhu fii amri nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi haaruun baa hal mar fircawn loo wada diray diritaankaasina wuxuu ka dhashay baryadii uu nebiyullaahi muuse ilaahay ka baryey oo ilaahay ka aqbalay hal mar bayna dhacday in ilaahay uu saddex rasuul iska daba diro id arsalnaa ilayhim ithnayni fakadabuuhuma facasasnaa bihaaliثin waxaa la yidhaha saddexdaa nebi ee la diray may ahayn nebiyaal risaalad madax bannaan wata waxay ahaayeen ummaddii nebiyullaahi ciise ayay ahaayeen marka waxay boodhka uun ka tumayeen caqiidadii nebiyullaahi ciise uu ka tegey ee may ahayn rusul kutub madax bannaan loo soo diray qadiyadda sixirka unbaa laba malag oo wada socda ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala waxaanu sidaa u yeelay inuu ina fahamsiiyo culayska iyo muhiimadda uu leeyahay sixirku culayska uu leeyahay marka mowduuca kan sixirku wuu ka hadal badan doonaa mowduucii hore aynu ka hadlayn aad buu uga hadal badan doonaa waxaanan insha allahu isku dayi doonaa inaan qalcad kasta aan gacan gelinno si arrimuhu waadix inoogu noqdaan mowduucanna uu noqdo mawsuuco iyo encyclopedia dib ay u raacraacaan da'yartu oo ay wax ka ogaadaan dhibaatada uu sixirku leeyahay aad baan haddii alla yidhaahdo daraasad aan uga soo sameeyey waanan idiin soo bandhigi doonaa in sha allahu tacaala min alif ilaa yaa intii aan ka kari karo waxaan isku dayi doonaa uun hadday cid iiga daba timaado mowduuca inay sii kabta ay doonto inaanan culays badan uga tegin meelaha uun aan ka booday inay kabi karaan mowduucan sidaa og tihiin sixirka anuu weli ma ogi culimmada dalkeenna cid intay u diyaargarowday xaqiiqadiisa iyo sirtiisa iyo isticmaalkiisa xaaraanta ah cid ka shafta oo bayaamisa oo xidhiirka ka dhaxeeya caqiidada iyo sixirka ee koontaradayso ah cid bayaamisa intaan anigu ogahay maan arag kaalintaasoo haddii alla yidhaahdo igu keliyaysatay waxaan isku dayey inaan daraasad laxaad leh aan ka sameeyo sahankaana waxaan ku maqnaa sannad iyo 5 bilood baan ku maqnaa sannad iyo 5 bilood ayaan daraasadda samaynayey wixii iiga soo baxayna waan idinla wadaagi doonaa wakhtiga intaas la-eg wixii iiga soo baxay haddii ilaahay ka dhigo waxaan jeclahay si hagar la'aana waxaa kaloon diyaar u ahay insha allah mowduuca wixii su-aala ay iga weydiin doontaan inaan fadhigii walba 15 daqiiqo idiin soo reebo oo fii hada almowduuc xowla hada almowduuc nin walbaaba wuxuu gocanaya ama weydiiyo oo maalintaa markaa muxaadarada aan gala ku saabsan waayo wixii soo socda gadaal baan ka gaadhi doonaa si wakhtigu inoogu kaydsamo waxaan isku dayi doonaa biidni illaahi albaari inaan wakhti idin siiyo
15 daqiiqo ah oo su'aalaha muhiimka ah ee mawduuca aan ka hadlay khuseeya inaan idinla wadaaga insha allahu tacaala intaanan mawduucan muggaa leh ee culayskaa leh intaanan gudagelin waxaan jeclahay inaan caawa ku soo ururiyo intaan ka gaadhi karo si ay iila saan qaadaan dad badan oo aan casharadii hore la soconin ayaa jira inaan si guud mar ah qodobada ugu muhiimsanaaye casharadeenii hore 11 ahaa inaan isira dul taago oo aan dhaa qodobka iyo qodobka xasuusin wixii ka dambeeya markaa innaga oo isla fahmayna inaan halkaa ka wada anba qaadno waayo waxaan idinku idhi casharkii 11 ahaa ee aynu soo qaadannay wuxuu gogoldhig u yahay casharkeennan hadda aynu bilaabayno ee 6 qodob ama 6 jibsimood aynu u kala dhignay waxaynu hore uga soo hadalnay aktarka iyo faacilka sixirka handhariya waa shaytaan iyo jin caasiya iyo shaytaan iyo ciidankiisa labadaasaa yacni lagu shaqaystaa marka waxaan isku dayay casharadeenii hore inaan ka jawaabo jin maxaa la yidhaa kelmadda jin waa maxay casharadeenii horey ku jirtay waxaa kaloon ka jawaabnay asalka jin muxuu ahaa muxuu jinku ka samaysan yahay waxaynu soo tilmaannay inuu naar ka samaysan yahay su'aal baa markaa dhalatay oo waxaa la yidhi jinka waa la cadaabayaa haddii la cadaabayo isna cadaab baabuu ka samaysan yahay cadaab muxuu ka gurayaa min maarijin min naar isagaa olol kaba samaysan wa khalaqa aljaanna min maarijin min naar isagii baa naar ka samaysan maxay naari ka taraysaa su-aashaasna waan ka jawaabnay oo waxaynu nidhi marka hore agleelkiisii hore iyo bilowgiisii hore ayaa maaddadan ilma aragtayda noqon doonta ayaa ilaahay ka unkay laakiin jeerkan maanta ah kama samaysna dabkii wakhtigan xaaliga ah jin iyo shaydaanku midna dab lagu gubanaya ma ahan waxaynu soo qaadanay axaadiid fara badan oo nebigeenna laga wariyay salawaatullahi wasalaamu calayh waxaynu xadiid saxiixa ku tilmaannay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaatuleyl tukanaya inuu cifriid jinihii soo weeraray isaga oo dhimbiil daba wata oo doonaya nebiga inuu wejiga kaga gubo markuu sujuudayey calayhi salaatu wasalaam deedna ilaahay u fududeeyo nebigii uu qabtay jinkii su-aal baa marka aynu ka jawaabaynaa oon odhanaynaa hadduu isagu dab ka samaysan yahay wax gubaya muxuu uga baahday inuu dhimbiil daba soo qaato muu gacantiisa uun saaroo ku gubo wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay awood u siiyey inuu jinkii soo weeraray cunaha qabto dabadeedna carabku ka soo dhacay oo dhareerkii ka soo da'ay gacantiisa ay qooyeen qabow inuu ahaa dhareerkii jinka ka soo yacni daatay inuu qabow ahaa marka maadada hore uu ka samaysmay ayuunbaa ah dab hadda dab ma ahan sida inaguba maanta aynaan dhoobo u ahayn oo haddaad roobka u baxdo aanad dhoobada ku milmaynin iminka roob hadduu inagu da'o miyaynu milannaa ma milmayno waynaga roobka iska dhex soconno wax alaale waxay naga soo daacay aanu jirin maca anna asalkeeni inuu ilaahay dhoobo ka abuuray waa khaaliq ilaahay siduu doono wax u abuuraa axad dhoobo ahaabuu ilaahay basharkaa aan haddana biyaha ku milmaynin ilaahay ka dhigay taasi waa intaa waxaynu isweydiinnay mataa khuliqa goormaa ibliis iyo shaydaan goormaa la abuuriyo jin isku wada qaado waxaynu sheegnay inaynu bidaat taariikh u garanaynin la abuuray laakiin inuu ka da'wan yahay basharku may sheegnay inuu jinku ama shaydaanku ka da'wan yahay bini aadmiga ayaynu carabownay waxaa kalaynu tilmaannay asmaa'da kala duwan ee jinku leeyahay wax ka mida baynu wax ka sheegnay waxaa kalaynu tilmaannay maxaa farqi u dhaxeeya jin iyo shaydaan jinow maxaa tahay shaydaanow maxaa tahay casharadeenii hore ayaynu kaga jawaabnay waxaa kalooynu ka warrannay inta qaybood ee jinku u qaybsamo oo xadiid saxiixa oo nebigeenna ka sugnaaday oo tilmaamay qayb reer guuraaya inay jiraan qayb hawaa'ihiina inay jirto qayb xayawaanka isku soo suuraysaana inay jirto saddexdaa nooc buu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jinku inuu qaybsamo
waxaa kaloo aynu ka hadalnay xayawaanada aynu dhaqanno qaar ka midii inay ilaahay awood u siiyey inay jinka arkaan sida dameeraha oo kale nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markay ciyaan shaydaan bay arkeen uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aynu su-aal kaga jawaabnay shaydaanka odayga weyn ee shaydaanka ibliiska la ydhaa ma jinkuu ka mid yahay mise waa aabbaha jinka ma jinkuu ka mid yahay mise isagaabay ka farcameen jinku masalada iyo culimmadu halkay ku arooriyeen waa inagii ka warrannay waxaynu markaa khulaasadii nidhi kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi isagu jinka ma dhaline ka mid buu ahaa waxaynu tilmaannay cidda ay ka tafiirmeenna inay ahayd jaan sida inagu aynu aadan uga tafiirannay wa khalaqa aljaanna min maarijin min naar qur-aankaa caddeeyey in asalka jinku inay ka yimaadeen oday jaan la yidhaah sida asalka insaanku ay oday aadam la yidhaah uga abuurmeen taana waynu ka soo qanacno waynu ka gudubnay waxaa kaloo aynu ka warrannay muxuu cunaa jinku labaynu u qaybinnay mid hawaa'i ah oo aan cunto u baahnayn iyo mid wax cuna oo waxaynu cunno iyo waxaynu cabno iyo tafiirba sameeya waynu ka soo warrannay waxaa kalooaynu ka warrannay jinku qaalibkiisu inuu dhadig iyo labood leeyahay ayaynu ka warrannay waxaa kaloo aynu ka warrannay su-aal isweydiin lahayd oo ah jinka iyo insigu ma isguursan karaan ama xidhiidh gogoleed ma dhex mari karaa masaladaana waynu ka hadallayoo culimmada islaamku waxay ka yidhaahdeen iyo halkay arrintu ku soo biyo shubatay waa inagii ka warrannay saddex bay u qaybsameen culimmadii masalada ah qola waxay tidhi waxaa suurtagal ah waxaabay yidhaahdeen waxaa ka mid a ragga maxaanku idhaa arrintaa calanka u sida imaam suyuuti oo kale waxaanu soo naqilayaa kutubtiisa aathaar iyo warar badan oo salafka laga hayo iyo culimmadii diinta oo tilmaamaya in jin iyo insi isguursadeen ibnu taymiyana raxmatullaahi calayhi majmuuca alfataawihiisa maxaanku idhaahdaa jiska 19aad safxadda 930 wuxuu ku odhanayaa waqad yatanaakaxu اlinsu waاljin wayuuladu baynahumaa walad wahada akthar macruuf way dhici kartaa in jinka iyo insigu isguursadaan way dhici kartaa dhexdooda inay carruuri ka beeranto waana masalo caan ah oo muran madoon ah habeenkii aan halkan fadhiyey masaladaa ka warramayna waxaan tusaale u soo qaadannay reer barigaa dega oo odaygu markii uu sii dhimanayey carruurtiisa la dardaarmay oo ku yidhi geelaa waa la idinla leeyahay geelaa waa la idinla leeyahay laba nin baa idinla lehe dhaxalkooda meel u dhiga odaygii markii uu wafaaday dhallinyaradii ay shirtay oo yidhaahdeen waryaadheen ma cid aynaan arkayn oo aynaan garanayn baynu xoolaheenna qayb intaynu xero uga oodna iskaga tagnaa hor odaygii dhimaya waxayna inoo qaybiya geelii saqdii dhexaa la dareersaday waxaan soo helay iimaan sheekh iimaan awowgii buu ahaa ninka dardaarankaa ka tegay geeloodii la dareersaday imaan maxamed diiriye ayaa igu yidhi annagay nagu dhacday qadiyadaasi oo reerkayagay ahayd marka masaladaasi ku-tiigaal ma leh oo carruurna way isu dhaleen waanay isguursadeen wax bayaamin badan u baahan ma ahan culimmada qaarkoodna waxay idhaahdeen horta nas diidaya inay isguursadaan annagu ma hayno laakiin annagu karaahiyaan u arkaynaa sababta oo ah hadallada ugu fiican waxaa wax ka yidhi imaam maalik binu anas raxmatullaahi calayh wuxuu yidhi anigu wax nas caddaynaya jin iyo isma guursan karaan anigu ma hayo waxaanan qur'aanka ku haynaa lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan markuu ilaahay xuralcaynta ka warramayey inaanay jin iyo insi midna u galmoonin ayuu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay markaa labadaasi inay maxaanku idhaahdaa ay nikaax wada samayn karaan waa wax iska cad buu yidhi laakiin anigu masaladaa karaahiyaan u haystaa waxaanan u kahanayaa waxaa dhici karta gabadhi intay uuraysato dabadeedna laydhaanaa uurkan yaa kuu yeelay
oy maxay tiraahdaa jin baa guursaday oo dabadeedna masaladii sinadu iyo fasahaadkii iyo fisqigii inuu daliil yeesho maxaa lagu raadgato inay taasi badataan anigu diidaya laakiin sharciyan wax nahyinaya anigu garan maayo culimada qaybta saddexaadna waxay yidhaahdeen aslan in guri laga samaysto jin oo jin la guursado annagu uma aragno waayo markuu ilaahay qur'aankiisa ka warramayay ee qofka ragga bini aadmiga ugu abaal sheeganayay inuu laba is qaadan kara inuu ilaahay ka dhigay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha ilaahay mannigiisa iyo abaal sheegashadiisa wuxuu ka dhigay laba qof oo bini aadmiyah oo isruux garanaya oo isfahmi garanaya inuu ilaahay isu sameeyey haddii xuduuddaa laga gudbana faham daraa dhacaysa oo saddexdii shardi ee ilaahay uu inoo geliyey labadan jinsi ee bini aadmiga meesha laguma helayo sakiinadii ma imanayso mawaddadii iyo raxmadiina ma imanayso waataan idinka warramayay habeenkaa inaa xasuustaan ma aqaane nin hilibla ahaa oo reer Hargeysa ahaa halkan hiliblaha ayaa galab walba marka casarku gobolku sii dhacayo baa gabadh qurux badan oo isa soo cadrisay waxa weeyaan 70-yadii ayaa hilibka wixii baaqi ku noqday ee ku baarixiyoobi lahaa bay ka iibsataa way iskala tagtaa lacagtana way siisaa maalintii dambe uu cilaaqay naaheedhe maalin walba waa adiga ii faaruqiye arrinkaaga muxuu ahaa cid kalena kama iibsatid aduu la yaro cilaaqiyo dabadeedna sheekadii way isugu duba dhacday markaasuu yidhi caawa ma ku raacaa markaasay tidhi haa way kaxaysay dabadeedna xaggaa iyo waxay ula kacday naasa hablood waxay geysay dhul wada iftiimaya oo laydhka ka baxaya aad yaabtiyo mandaradaha ku yaalla dhowr maalmood bay kaxaysay waxay kula ballantay waryaahe yaan salaada subax lagugu addimin guriga salaada subax haddii lagugu addimo adigaa yaqaan maalmaha habeenada ka mid a baa hurdadii la tagtay deedna sidii bahalkii biriishka ka dhacay baraarugay goorda soo baxay barqu iska kacay isaga oo jiifo meel gudaafada oo dambaska ku galgalanaya ayuunbuu soo kacay markuu soo kacay ayuunbaa qalbigiiba qaracmay tolla ayama naag jinaan maxaanku idhaahdaa la jiifay waa waashay meelahaanu marmari jiray Hargeysa dadkii reer Hargeysii hore way garanayaan marka waxay leeyihiin culimadu arrintaas annagu ku talin mayno mana bannaana maadaama aan mawaddana laga helayn raxmana laga helayn sakiinana aan laga helayn mawduuca aad baan uga hadlay ninkii xiisaynaya halkiisii ayuu u doonan doonaa insha allahu tacaala wax kaloo aynu ka jawaabnay jinka iyo shaydaanku ma dhintaan qabla albictha intaan laysa soo saarin ama suurta ugu dambaysa intaanay gaadhin jinka iyo shaydaankuba way dhintaan ballanqaad waxaa haysta oo keliya odayga weyn ee ibliiska weyn kaasunbaa haysta ballanqaad ah andirnii ilaa yowmi yubcathuun weliba dalabka uu dalbaday xaasidnimadiisa tafiirtiisa kuma darin ifraad buu cabiray andirnii ilaa yowmi yubcathuun ilaahayow iska kaydaa muu odhanin ilaahayow aniga iyo tafiirtayda iyo inta ila shaqaynaysay ciidankayga iidaa ma odhan marka isaga weyn mooyaane inta kaloo dhan way dhintaan cimri baanay ku dhintaan ajashooda ay ku dhintaan jinka iyo shaydaankuba way dhintaan waxa kaloo aynu aad uga warranay meelaha ay ku badan yihiin masaakinta ay degaan iyo meelaha ay fadhiistaan waynu ka warranay waxaa muhiima inaan baraarujiyo amaakinta ay shayaadiintu fadhiisato waxa weeyaan meesha cadceedda iyo hadhku ay ku kala rogmaan cadceedda iyo hadhku meeshay ku kala rogmaan inaad fadhiisato jidhkaaga qaybna cadceedda aad u dhigto qaybna aad hadhka dhigto nebigu wuu mamnuucay salawaatullaahi wasalaamu calayh imaa inaad cadceedda wada aaddo imaa inaad hadhka wada gasho mooyaane inaad jidhkaaga qayb ka midina hadhka ay joogto qayb ka midna ay cadceedda joogto waa masalo uu rasuulkeennu mamnuucay xikmadda ku jirtana waan ogaaday
dhowr qof oo sidaa yeelay waxaa la iigu keenay cilaajka iyagoo faalij ku dhuftay sababta oo ah jidhkeennan dhiig baa dhex wareegaya qaybtaa kulaylka markuu marana dhiiggii wuu kululaanayaa isagoo meel kulayla soo maruu markiiba haddana jawigii qabobaa ee waaxda kale buu soo marayaa xawaarihii laxaadka lahaa uu ku socday baa isdhimayaa dabadeedna waxaa imanaya xawaarihii dhiigga ayaa khalkhalaya marka waxaa suurtagal ah inuu xawaaraha dabadeedna maskaxda uu dhiig ku furmo ruuxa rasuulkuna waa mamnuucay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ruuxu inuu qaybna cadceedda ku fadhiisto qaybna uu fadhiisto haddii alla ka dhigo meesha hadhka ah labada dhanuun raac baa la yidhi marka masaladaa cilmiga ahina saasay u jirtaayoo qofka muslimkii inuu naftiisa u tudho halis badan baa ku jirta marka maanica diiniga aba laga yimaado waxaa kalooynu ka warrannay qudratuhum cala atashakul inagu isma doorin karo oo suurad kale ma yeelan karo oo anigoo bini aadmiya waraabo iskama dhigi karo oo qisadan beenbeenta ay yidhaahdaan ciise waraabo iyo geed baa la ismariyaayo geed ismaris weeyaan waxaasi waa iska khuraafo waana waxa weeyaan sixra alkhayaal baa la yidhaha sixra takhyiil ayaa la yidhaahdaayo ninkanu sixir buu adeegsanayaa indhahaaga xaqiiqadii waxaan ahayn buu tusayaa isagu ninkan geedka ismariya ay sheegayaan waa basharkiisii laakiin adiguu ku sixrayaa oo uu kaaga dhigayaa inuu waraabo noqday waxaa la yidhaha sixirka noocaasa waan ka hadli doonaaye sixra takhyiil baa la yidhaha insaanku insaannimadiisa kama guuri karo laakiin jinka iyo shaydaanku way isdhalanbedeli karaan absad mihaal waxaynu soo qaadannay dagaalkii beder mise uxud buu ahaa ninkii suraaqa binu maalik isku soo shabbahay shaydaankii weynaa intuu odaygii suraaqa binu maalik isku soo shabbahay uu ciidan soo kaxaystay waa dagaalkii uxud samahay beder bay ahayd ee dabadeedna markay malaa'igtu timi innii araa maa laa tarown uu ka cararay beder bay ahayd maalintii nebiga la shirqoolayey daarannadwa wada maqasho odaygii gaboobay ee maxaanku idhaha min ahli najdi isku tilmaamayey ee shirka ka qayb galay ee guddoonkii ugu adkaa waafaqay ee yidhi kaasaan ku qanacsanahay wuxuu ahaa shaydaan buu ahaa odayga weyn ee shaydaanka ee maxaanku idhaha caniidka ah ayuu ahaa qisooyin badan baa jira makhluuqaadka maxaanku idhaha jinkiina way isbedelaan marbay bisad iska dhigi karaan marbay ay iska dhigi karaan marbay qof bini aadmi oo caadiga isaga soo kaa dhigi karaan sidii abaa hurayraba markii nebigu calayhi salaatu wasalaam sekada uu u diray uu u iman jiray sekada uu xadayey ee uu qabanayay mar walba bini aadmi buu iska soo dhigay ha ku daalin waan ka warrannay taas marka bini aadmigu ma tashakulo laakiin jinka iyo shaydaanku labaduba way tashakulaan macnaa tashakul waxaan uga jeedaa way isdhalandoorin karaan waxaa kalooynu ka soo warrannay xukmu waxaynu ka soo warrannay ma istikhdaam ma la adeegsan karaa jinka ma la diran karaa oo ma lala shaqaysan karaa oo ma lala mucaamaloon karaa ayaynu ka soo warrannay arrintaa meel adag baynu kaga soo hadhnay jinka hadduu qof bini aadmiya ka dhex hadlaya iyo hadduu suurad bini aadmiya isu soo ekaysiinaya iyo qaabkuu doonaba ha isu dhiga jin lama adeegsan karo mar baa la adeegsaday markaana taskhiir ilaahiya bay ahayd waa markii nebiyullaahi sulaymaan uu ilaahay ka codsaday ka dalbaday qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi innaka anta alwahaab dalabkaa nebiyullaahi sulaymaan ilaahay buu weydiistay marka ilaahay khalaa'iq badan buu u adeejiyey nebi sulaymaan oo shimbiruhu ka mid yihiin oo dabayluhu ka mid yihiin oo jimanku ka mid yihiin maa bacda sulaymaan cid jin adeegsatay oo ka faa'iiday lama arag
cid jin adeegsatay oo loo sakhirayna ma jirto ilaa ciddaan daansatay oo albaabkeeda garaacday oo hadhow mahadin weyday mooyaane haddaad albaabkooda gasho waa albaab aan furmin hadduu xidhmo haddaad jin isku doondoonato jinka saalixiinta ihi isma tusa aadamaha markuu saalix yahay xuduuddiisuu ku eg yahay innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum isma tusa aadamaha laakiin waa faasiq mujrim ah jinka ku odhanaya waan kula shaqaynayaa ama waan kuu adeegayaa ama wax baan kula qabanayaa waa jin xuduuddiisii ay deeqi weyday oo dulmi iyo daandaansi wada lidaalik waxaa la yidhaahdaa haddaad aragto nin jin ku shaqaysanaya wuu raalli geliyey haddaad aragto ruux jin u shaqaynayo wuu raalli gelayo cisyaan buu ku raalligeliyey waxaan ilaahay raalli ka ahayn buu sameeyey saasay jinkuna ku caashaqeen saasay jinku ku doorteen jinka la shaqaynayana waa jin kaafir ama waa mid caasiya oo macsiyada iska raba laakiin adeegsiga jinku waa mamnuuc marnaba kama dhicin rasuulillaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh baahidii doontaaba ha haysee inuu caalamal-jin adeegsado dagaalkii beder baa loogu tiro yaraa nebiyullaahi moxamed saxaabadiisu 313 bay ahayd gaaladuna kun iyo in la socotay ahayd askarigii islaamaba 3 nin baa ku soo beegmayey muslimiin jinihina way jireen wakhtigaa oo jinkii nasiibayn ee isagoo maka jooga soo muslimay baa jira waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan soma xasuusataan iyadoo maka la joogo bay soo muslimeen jinku dagaalkii badarna kamay qaybgelin ee baahida badan ciidanka loo qabay ciidan waxaa laga dalbaday samada malaa'ig baa la keenay 5000 min almalaa'ika baa la keenay boqolaal muslimiin oo jinina way joogeen lama soo gelin dagaalka kamay qayb qaadan iyagu jinkooda gaaladaa bay la dagaalamaan inta noocayna u qaybsanaba bay u qaybsamaan bidca iyo sunnaba ma fahamteen markaa jinka maalintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu khandaqa ay qoteen ee uu nebigu dalbaday waryaa ii soo ogaada abaa sufyaan iyo ciidankiisii siday yihiin ee dhaxantu ay dhacaysay ee dhammaan saxaabadu ay dhaxantii ka gabadeen oo la cabsanayay wabalaqat alquluubu alxanaajira watadunnuuna billaahi adunuuna marxaladdaa la marayay cabsi ay godka ku kaajaysay saxaabadu ee nebigu yidhi waaryaa ii soo ogaanayo ii soo sahamiya ee axad kici waaya waa xasuusataan ee ay kaliftay nebigu inuu yidhaha waryaa xudayfe sarakac orod ii soo eeg abu sufyaan iyo ciidankiisii oo haddaad dagnaan ku hesho tallaabaha qaadin haddaad nimankaa cid dagan aad ka hesho wax adshanaha samaynine xaaladooda ii soo ogow oo mugdigii habeennimo intuu dusay dabadeedna abu sufyaan oo ciidankii heegan geliyey uu u yimi ou dhex fadhiistay waana waqti madow ah dabadeedna abaa sufyaan uu ku yidhi waryaadheen war baan idiin sheegayaaye nin walowba ninka kugu xiga iga hubi kumaa tahay ku dheh dabadeedna xudayfa markiiba ka gaadhsiiyey kii ku dhawaa yidhi war kumaa tahay intaan isaga la weydiin uu yidhi hebel baane haa waad fiicantahay bes sooad garan waa kii markaa warkii soo ogaaday abaa sufyaan iyo ciidankiisii inay cabsadeen oo ilaahay cabsi ku riday oo dabadeedna ay guurayaan war maalintaa maalin looga baahi badnaa ilaan jinku wuu tegi lahaa abaa sufyaanna waa soo ogaan lahaa xaaladdaa adag ee saxaabadu ay ka wada giigtay muslim jinih lama waayinoo la adeegsado waa kii dib uga joogsaday muslim oo dhani muslim jin ahoo la adeegsaday aslan ma jirto waxaan sidaa u leeyahay inaa il baxdaan oo mar walba aan la idin harowsanin oo qof shaydaan iyo jin adeegsanaya aanu sheekh isooga kindhigin jinka adeegsigiisu noocnaba ma bannaana inta badan dadka cilaajyada furtaa way ku dagmaanoo jin faasiqabaa qof gelaya markaasuu wadaad iska qalinduurii qur-aan ku aqriyaya markaasaa jinkii hadlayaa uu leey warheedhe
أنا جن مسلمان هاي وان كل شقينا يا جن كان كالا صار يا ضدك نيو أن وذا شقينه هيا وهي إلى الشقية مركه هربا أوران مايو ورقف كان بين آدمك مسلم كأشرعك كوب النية إن أتقشوا هذا مسلم تاي الظلم ظلمات يوم القيامة دي مكاب الظلم كتيرتا هذه جو الظلم كتير سيد يجوه لنا يسا أوران مايو وهي هيبول لي هاي قف كان كل هذا اللي يجينك الروح كذا حد ليا الشيطان كأ ما أركي كرتيد ووجه كيسة يقاب كيسة ما قف مؤمن كيس ما قريه سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا اللباد قف مؤمن إلهي كعب سنة يا ظلم ما بصميه وحاب كوء إنه قف كلام ظلمه هي روحي قاعد قارن قرنيو بين ذي الشيء ما يجرو وان شوقي نمان اللي يرى وأنا كنت عبنو إلى التوحيد هانشري باباب كاقلي نتشم بيلا شقيستين تدلوق قاتين هو حي إيشاقين صلاة الصبح مركا لتوكدو عاد عيد الصبح يسوي حتى عاد عيد وكسر عايزه سجود سن إنه أركان شمبان مركا ورنا لشقين كل شقين يا كويري marka wada shaqaysataana goldalooladaada oo dhan buu ogaanayaa markuu goldalooladaada ogaadana aakhirka marka dambe wuu ku legdanaya uu ka maxaan ku raa tactic badanaya marka jin in la shaqaysto aslan wax banaan ma aha ha ku dagmina fataawaadka qaarkood ee culimadu ay qaarkood oranayaan hadduu waxyaalo yani wanaagsan uu ku samaynayo waa la dirsan karaa arrinkaa ha ku dagmina jinku sidiisaba hadduu qof bini aadmiga ka dhex hadlayo huwa daalim isagaaba daalim ah man caana daaliman bidulmihi sullita calayh haddaad jinkaa u fasaxdo inuu qofkaa ku dhex jiro markaad cid u baahataba uu soo galo oo tiraa qofkan xanuunkiisa ii sheeg qof baad jin ku jiraad adeegsanaysaa markuu jinkii baad odhanaysaa soo gal hebel markaasuu soo dhex gelaya markaasuu odhanayaa qofkan la ii keenay ii sheeg xanuunkiisa iyo maxaan ku raa nooca ku jira markaasuu ilaa waajina iska daldalmaya 99% warkiisa waa been tiiba marka dambe isaguna haddii alla ku dhaqmaya kii wadaadka ah waa mas'alo khayaama ay ku jirto oo marka hore inuu lugta kula soo galo buu isku dayayaa dabadeedna lugta labaadna markuu ku ogaado goldalooladaada ayuu kula soo gelayaa marka adeegsiga jinka waan ka warranay waxaan caawa ugu tigaalayaana waxa weeye waa masalo shaa'ica oo aad u faaftay inay dad badan yidhaahdaan waxaanu leenahay ruuxaan muslimaan leenahay junuud muslimaa nala shaqaysa haadaa khuraafa jin muslimahoo ilaahay yaqaanaa xuduuddiisa ma soo dhaafo masaladaana maalintii horeen marayeyna aad baan isu dul taagay waxaa kalooynu aad uga warrannay masalooyin arrimahan caqiidada soo dhexgelaya oo bini aadmiga intooda badani aanay kala saari karaynin waxaynu ka warrannay farqiga u dhaxeeya mucjisada iyo karaamada iyo irhaaska iyo macuunada iyo ihaanada iyo istidraajka iyo sixirka toddobadaa masalo oo marka baabkan aad ka hadlayso kaa hor iman doona toddobadaa masalo farqiga u dhaxeeya ayaynu ka warrannay iyaguna oo waxaynu mucjiso waxa iskale ambiyada mucjisada iskale irhaaskana nebiga intaan la caleemo saarin muuqaalada ka soo horeeya ee ilaahay ku gargaaro ayaa irhaas la yidhaahdaa sida nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka uu socdo intaanu nebiga noqon dhagaxaantaa salaami jirtay geedahaa salaami jiray marka uu da'yaraa inta ilaahay laba malagu soo diray ayay jeexeen dabadeedna qalbigiisa waatay ka saareen jibkii uu ugu jiray maxaan ku idhaha satellite-ka shaytaanka waa tii laga nadiifiyey ayaa arrimaha wixii la mid ah ambiyada ilaahay intaan nebinimada loo soo dirin yacni waxyaalaha la yaab kale ka sii horeeya ee ilaahay uu ku sharfo ayaa irhaas iyana aynu nidhi macuunaduna waxa weeye dadka saalixiinta ah arrin marka hore khayra macquul ugu muuqatay oo ilaahay uu fududeeyo macuunaa la yidhaa sidii saddexdii nin ee muslimiinta ahaa ee nebigu ka warramay ee dhagwuxu ku degey ee ilaahay baryey
dabadeedna dhagaxii laga fayday waatay isku dayeen inay dhagaxa iska riixaan waatay kari waayeen maxaa yimi markaa macuuna min allahi tabaaraka wa tacaala macuuna xagga ilaahay uga timi ayaa deedna ilaahay u soo diray waatii dhagaxii ilaahay kayfiyadu uga qaaday waa wada garanaysaan ihaanaduna waxa weeye nin ama nebinimo sheegtay ama awliyanimo sheegtay ama awooddiisa in ka badan sheegtay oo aan shareecada ilaahay ku toosnayn oo dadka idhaa indha sarcaad baan idin tusayaa deedna ilaahay ku qallibo sidii laga filaya si aan ahayn ka soo baxdo sida musallamat alkadaab ninkii la odhan jiray ee uu u yimi nin saxaabadiisa ka mid ah isagoo ishu xanuunayso oo yidhi nebiyullaahi sulaymaan maxaa la odhan jiray musallamow waa ka nebi moxamedba maxaanku idhaahdaa saxaabadiisa markay indhuhu xanuunaan ugu tufee isha igu tuf dabadeedna ishii uga tufay ishii kalena uu waayey halkii uu ka filayay ila waa shaytaane ihaanaa la idhaa halkuu isha ka eegayay inay ishu u baxdo ayuu ishii kalena waayey waxaa kaloo jira masale la yidhaha istidraaj waa baardaaji weeye istidraajku waxa weeye qofkii oo loo seeta dheereeyo oo la yidhaahdo ha ku dhaca dabinkee walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numli lahum khayru lianfusihim inamaa numli lahum liyasdaaduu ismaa marka nin faasiqa aad arkaysaa la baardaajinayo oo kibir un ka sii qaadaya oo aan cidiba la hadlaynin falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa lahum calayhim abwaaba kulli shay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay marka khalqiga aan soo joogsan laga waaya baa ilaahay yidhi war kadaa markuu tala diid noqdo macangeg ah oo xakamadiida markuu noqdo waanu u sii daynaa baa ilaahay yidhi xakamihiisa falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay taasna waxaa la yidhaha istidraaj oo qof ilaahay caaseeyo oo loo badinayo haddaad aragto waxa weeye baardaajin baa la yidhaaho laguma dagmo iyo baabkan aynu ka hadli doono ka toddobaad oo sixirka aynu ka hadli doono toddobadaa masalo waynu kala dhigdhigno waan ka hadalnay waxaa kaleynu ka jawaabnay oo haddii alla yidhaahdo casharadeenii hore ka mid ahaa su-aal ah war jinku qaybka wax ma ka ogaan kara الشياطين والجن أود ما أوليهين إن يغيبك وحكو أجادان مسألة داس وحنود لجنا يا جماعة الضمبة إن شاء الله تعالى طبعا نوحي دروسك كلا ينور راعة أيين إن شاء الله تعالى أيين وجود بدونا 10 كنا ما أنتنا هلكا أيين وجود شوقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.